dad badan ayaa mindida daabkeeda u hoos galay, kuwa badan ayaa irbadaha u qabatimay, qaar kale malaayiin dollar u soo deynsaday si ay u qurux badnaadaan, wajigoo la beerto, sankoo la qorto, dibnahoo la durto, iyo midabkoo la iska bedelo. waa casharadii laga soo dheegtay aabihii qoobka ciyaarka caalamka ee Michael Jackson. gabdho badan oo Soomaali ah ayaa bilaabay inay dhalan rogaan muuqaalkooda oo beertaan faruuryo been abuura kadib goortii Muqdisho lagu soo kordhiyay xarumaha bilicsiinta jirka. inkastoo iridaha la isugu dhuftay, haddana waa dhaqan aan wanaagsanayn oo ku cusub Soomaalida dhexdeeda, balse bulshooyinka kale ee caalamka si weyn ugu baahay. qaliinka balaastiga ee wajiga lagu beeranayo ayaa dhakhaatiirtu horumar weyn ka gaareen qarnigan, waxaana awood loo leeyahay in la bedelo qaab dhismeedka sankaaga, garkaaga, daamankaaga iyo dibnahaaga. soo jiidashada ragga iyo kalsooni darro nafeed ayaa lagu tiriyaa inay keento in dumarku isku sameeyaan qaliinada dib u qurxinta jirka. atriishooyinka aflaamta Hollywood iyo Bollywood oo lagu sheego kuwa ugu quruxda badan caalamka ayaa hogaaminaya dadka dib u dayactirka ku sameeyay jirkooda. kama hadlayno sidii uu xaday qalbiyada malaayiin qof oo ku indhadaraandaray qoobka ciyaarkiisii ashqaraarka lahaa ama magaciisa aan lumin kadib geeridiisii. waxaanse kula wadaagaynaa in xidigii caanka ku ahaa heesaha boobka ee Michael Jackson uu yahay qofka ugu caansan dadka waalidiintoodu ay garan waayeen kadib markii ay mareen qaliimada jirka. bartamihii 1980-meeyadii, fanka Michael Jackson waxa cadaadis ku hayay nacaybkii loo qabay dadka madow ee Mareykanka, waana sababta loogu eedeeyo inuu bedelay madowgiisii dugulka ahaa. si lama filaana waxa isku bedelay muuqii maqaarka Michael Jackson. midabkiisii mugdiga ahaa ayaa lagu dhex arkay baro cadcad oo judhii hore loo sababeeyay isbedel dhanka cimilada ah. markii hore dhakhaatiirtu waxay xaalkiisa ku sheegeen mid sahlan, waxayse talo fara ka haday markii dhabarkiisa lagu arkay midab bunni ah oo ku sii fidaya qaybaha jirka, ilaa markii dambe jirkiisu uu lumiyay midabkiisii madoobaa kana dhigay baro cadcad, kuwa madmadow iyo boogo bunni ah. waxaana laga helay cudurka vitiligo oo ah hidde-side dhalan rogay muuqiisa. dhakhtarkii maqaarka ee Michael Jackson Arnold Klein ayaa sheegay inuu midabkii maqaarkiisa lumiyay cudurka vitiligo oo uu ka dhaxlay aabihii. waxaana halkaa ka soo bilowday safarkii isqurxinta jirka ee Michael Jackson. si uu u qariyo nabarrada aan sinayn ama kala jaadka ayaa keentay in fanaankani uu isticmaalo kiriimada maqaarka lagu caddeeyo oo xilliga adeegsigooda uu aad u yaraa. sanado badan oo fanaanka Michael Jackson uu la ildaraa xanuunka uu aabihii ka dhaxlay ee vitiligo, waxa dhibaato ku hayay fallaaraha qorraxda oo maqaarkiisu uusan u adkeysan karin. inta badan waxaa la arki jiray isagoo cadceedda iskaga ilaalinaya, gacmo gashi, koorar waaweyn iyo dallado. kadib geeridii Michael Jackson, waxa la ogaaday inuu wajigiisa ku sameeyay 14 qaliin. waxa uu bedelay sankii weynaa, bushmihii khafiifka ahaa, dhabanadii shubnaa iyo suuniyihiisii ballaarnaa, taasoo ka dhigtay madowgii ugu caansanaa ee caddaanka isku bedelay. malaayiin taageerayaal ayuu maankooda ku xaday isbedelka jireed ee uu ku sameeyay muuqiisa, waxaana la sheegaa inuu sabab u noqday kalsooni darrada jilayaasha caalamka iyo gabdhaha reer galbeedka oo noqday kuwa ugu badan ee qaliinka dib u dayactirka jirka isku sameeyay. sida laga soo xigtay ururka dhakhaatiirta qaliinka ee Mareykanka, sanadkii tegay ku dhawaad 18 milyan oo qof ayaa maray qaliinka iyo habraaca isqurxinta jirka, iyadoo ay kordheen 3 meeloodba 2 meelood oo ka mid ah gabdhaha Mareykanka ee dib isu qurxiyay.